gawaaridan cusub ee maanta lagu wareejiyay ciidamada isku dhafka ayaa waxay qayb ka yihiin gawaari ciidan oo dawladda Mareykanka ay ugu deeqday dawladda federaalka ee Soomaaliya. goobta baabuurta lagu wareejinayay ayaa waxa goobjoog ahaa wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Mareykanka, taliyaha ciidamada isku dhafka iyo mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland. ugu horeyn waxaa wareejinta gawaaridan ka hadlay wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cali Xaga iyo taliyaha ciidamada isku dhafka ee Jubbaland Muxyidiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdille. Jubbaland Ismaayo anagoo maanta u nimidnay hawlihii anigoo ah gudoomiyaha isku dhafka ciidanka dalka Soomaaliya inaan munaasabadan ugu horeeyay laga suura geliyay Jubbada Hoose oo ah ciidan integrated oo ka kooban dhammaan dadka degmooyinka gobolka Jubbada Hoose. waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Mareykanka taageerada ay mar walba nala garab taagan tahay sida ay ummadda Soomaaliyeed ay lugaheeda isugu taagi lahayd cadowga nagu soo duulayna aan iskaga dhicin lahayn. waxaan rabaa laba kalmood oo dardaaran inaan halkan ka idhaahdo. shalay ciidan waan lahayn, waxa burburiyeyna waa laga wada fadhiisanayay. caawimadana la caawinayaana waxaana laga rabaa waxaa laga soo qaaday dad ina la mid ah cashuurtu ayaa lagu soo qaaday. marka waxaa loo baahan yahay inaynu xafidno, inaynu ku fara adeegno, inaynu cadowga iskaga celino. saas darteed taliyaha Muxyidiin iyo ku-xigeenkiisu dhinacayga taagan waxaan kula dardaarmayaa inay ku gacan adeegaan oo ay ilaaliyaan oo xil gaar iska saaraan oo deeqdii ugu horeysayna loo soo diro. haddii aynu xafidno inaynu ku fara adeegnana wax kaloo badan maalin lama dhisin baa la dhahdaa. waan ognahay inay baahiyo fara badan ciidanka haystaan, laakiin maalinba wax ayaa ugu soo biiraya oo kusoo gudbinaya. maalin dhowna waxaan arki doonaa biidnillaahi kariim ilaahay idankii inagoo cagaheenna isku taagnay iyo inagoo aan cagin ku badan ciidanka nabigeena ugu sheegay Soomaali isku tusay ciidankeena uu difaacayo nabad iyo horumar inagoo ka sheekeynayna waxaan la wareegnay 17 baabuur oo macaawin oo ka timid dawladda Mareykanka inagu wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga ee xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirkeedu ka yahay oo uga mahadcelinaynaa intaan nahay taliska qaybta labaad saldhigga 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubbaland. jala wasiir waxaan ka ballan qaadaynaa in aan xanaanada baabuurtaas yihiin baabuurtii qaranka Soomaaliyeed loogu talagalay jikooyinka. waxaan idinkaga mahadcelinaynaa wareejinta aad nagu wareejiseen baabuurtan. annagana waxaan qaadanaynaa mas-uuliyaddeeda inaan qaadno iyo askarta saaran loogu talagalay inay maaragtay ku dagaalamaan in ayagana aan ka dhaadhacsiino mas-uuliyadda saaran iyo baabuurta waxay yihiin. taasna waa kaaga mahadcelinayaa. Mas'uud Cabdullaahi Aadan SBC magaalada Kismaayo.